waqtiga uu qalisan noloshaada waa kan aad haysato hadda. waxaa oraahdaasi tusaale u ah Pat Ormod oo 75 jir hanatay darajada koowaad ee heerka jaamacadeed 42 sano kadib markii ay ka tagtay waxbarashadeedii. waxaa qoyskeeda ay sidoo kale u dabaaldegayaan munaasabad kale, qalin bedelashada gabadha ay ayeeyada u tahay ee 22 jirka ah ee Moldy. waxaan ogaa inaan qalin jabin doono, balse marnaba ma filaynin in ayeeyo aan wada dabaaldegi doono, ayay tiri Moldy. Pat ayaa fasalkeedii ugu horeeyay ka bilowday jaamacadda Kennesaw State University ee ku taala Atlanta, balse waxyar kadib waa ay ka tagtay markaas oo ay u guurtay gobolka Tennessee. 10 sano ayay shaqaynaysay si ay u koriso caruurteeda oo uu ku jiro Moldy aabaheed. markii ay howlgabka noqotay ayay qoyskeedu ku dhiirigeliyeen inay dib u bilowdo waxbarashadeeda. waxbarashadu ma dhammaato, waxaa sidaas igu dhihi jiray aabahay markii aan yaraa, waxba kuma jabna waxa aad samaynayso, xitaa haddii aad xiiso ku qaadato hab maqal ah, mar waliba waxaa jira wadooyin aad qaadi karto, ayay tiri Pat oo ku faraxsan qalin jabinteeda.